tan iyo markii dowladii dhexe ee Soomaaliya ay burburtay waxaa soo baxay bulshada Soomaaliyeed oo ku milmaya bulshooyinka kale ee dunida gaar ahaan wadamada ay dib u dejinta ka heleen marka laga soo tago dhaqan doorsoonka ku yimid qaar ka mid ah dhalinyarada haddana waxaa jira dhinacyo wanaag horumar iyo magac ay soo hoyeen qurba joogta warbaahinta wacdaraha nolosha ayaa u kurgashay dhinacyada ay ka soo muuqdeen sida siyaasadda isboortiga caafimaadka waxbarashada booliiska iyo ganacsiga dalka Norway waxa uu ka mid yahay dalalka ay Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin saameynna ku yeesheen dhanka siyaasadda haddaba waxaa guud ahaan dalka Norway ka socda doorashooyinka golaha deegaanka kaasoo ay ku tartamayaan xisbiyada waddanka oo ay ka dhex muuqdaan Soomaali badan waxaa makarafoonka la dhex qaaday Soomaalida magaalada Bergen ee caasimadda labaad ee dalka Norway oo laba musharax oo mid haweeney ay tahay ay ka soo muuqdeen xubnaha u taagan xisbiga shaqaalaha oo ka mid ah xisbiyada ugu waaweyn ee dalkan gudoomiyaha ururka haweenka magaalada Bergen Maryan Aadan Cigalle ayaa ka hadashay muhiimadda ay Soomaalida u leedahay doorashada xilligan dhacaysa hadlayo doorashada oo ah macnaha maanta waxa noogu jira doorashada waa ogtiin dad Soomaaliyeed Bergen weligeed kama dhicin inay soo galaan dad Soomaaliyeed waa markii noogu horeysay ay soo galaan Soomaalida marka waxaan rajeynayaa in codka la siiyo Soomaalida ama qofkay noqoto xoraata aad qofka siisanaysid laakiin Soomaali yani wadankaana deganahay magaalada waa magaalada deganahay waa Bergen waxa loo codeynayo waa degmada iyo gobolka waa laba waa filkaha iyo kamuunka marka anaga waxa laga soo galo waa degmada kamuunka Bergen in la isku qasama kamuunka Bergen waa degmada filkaha waa gobolka dhan waa loo codeynayaa degmadan waa loo codeynaa tan degmada marka waa mid ay ka soo galeen Soomaalida inay noo fariistaan marka qof walbana codaan leenahay magaaladan sababtoo ah cod ugu leenahay wadanka marka degantahay wadankaada ka soo tagtay wadanka degantahana waa dimuqraadi meeshan cod laga bixiyo maxaa la dhahaa baarlamaan ma lagu qaato maadaama degmada loo codeynayo waxaa noo muhiim aan magaalada deganahay inaan codeyno intii codeyso horta way codeysay intaanan codeynin waxaan ka codsanaynaa inay codeeyaan maadaama magaaladii aad degan tahay codeey codkaada dhiibo waxaa jira xaq badan aad leedahay markaa codkaaga dhiibatid haddaad codkaaga baxsan aadan dhiibin waxba xaq ma leedihiin sababtoo halka codoo adig kaa maqan meel unbuu ka maqan yahay xisbigaa dooro lehduu ka maqan yahay haddaaba ada xaq u leeda inaad codeysid waaba inaad codeysid haddaad xaq u leen maba u leedihidba waaba lagu sheegaa markaa meesha tagta xaq uma leedaha lagu leeyahay laakiin isku day inaad tagtid horta ood codeysid markii lagu dhaho kale codka ma lihid adiga waqtigaad ma ahan dee ka soo dhaqo laakiin isku day inaad codeysid markuu codeeyo walaalaheena ha loo codeeyo Soomaaliyeed ee Bergen maxaa la dhahaa tan labaadna waxaan ka codsanayaa dadka ayagana oo loo codeynayo haddii codka helaan ballamadii ay qaadeen inay oofiyaan sababtoo waxaa jira Soomaalida ama bini'aadamka intay ballan wax qaadaan inay ballantooda ka soo bixi waayaan laakiin waa muhiim inaad haddaad heshiin insha Allah inaad Soomaalida wax u qabatiin waa muhiim waa intaasaan ku soo gabagabeynaa insha Allah bismillaahi kariim codkana waxaa u dambeeyay isniinta soo socota waa 9 bisha maalinta ugu dambeysa waa qof kastana xaafadiisa ka jirta markaas 9 bisha waxaa laga wadaa xaafadihiina ka jirta ama iskool ahaado ama lookaal ahaado kulli meelaas ka wada jiraan marka maalintaas dadkan codeynino hadda iska sii codeey inta codeyn xaafadooda ka codeysa maalintaas oo isniinta u dambeeyay Cabdiqadar Xuseen Maxamuud oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda magaalada Bergen qaybta kulliyadda cilmiga aadanaha ayaa cabiray fikirkiisa kaga aadan doorashooyinka dalka Norway bisha 9 September sanadkan waxaa bilaabanayo kama dambeystii doorashooyinka gobolada iyo deegaamada sida daraadeed waxaa arkaysa Soomaali badan oo xisbiye badan ee marka ay daneynayaan inay codsigooda siistaan marka su'aasha badal isweydiin waxa keenayso maxaa yeelay inay Soomaalidu doorashada sidii hore sanadeedii hore aga qayb galeen oo hadda aad ugu soo batay sababo badan ayaa keenaya waxaa kamid ah arrimaha soo galootinka arrimaha bulshada iyo qoysaska marka wax badan baa la fahmay iyadoo ay saa tahay sida daraadeed hadda dad badan doorashada aga soo qayb galayaan inay codkooda dhiibtaan baritan ay kula xisaabtamayaan dadka matalayo siiba hadda xisbiga shaqaalaha wadanka loo yaqaan AP
waxaa u tartamaysa 2 qof oo Soomaaliya 2 qof Soomaalina waxay noqonayaan 2 qof oo lagu Soomaalida matalayo waxyaalo badan oo ammaanada iyo ballan qaadyada ay dadku dooranay ka ballan qaadeen fulinayo marka siyaasaddu sideeda waxadba maalinba waxay leedahay waji cusub marka sida daraadeed waxay yeelaysaa in aan xal la yiraahdaayo dadkii ay bari kula xisaabtamaan dad Soomaali badan waxaad arkaysaa wadanka sharciyada ku saabsan dhibaatooyinka haysto arrimaha qoysaska sida qolooyinkan loo yaqaan baan oo ilmaha ku saabsan marka arrimuhu waa badan yihiin lama soo koobi karo xisbi walbana wuxuu leeyahay manifesto gaar ah marka ninba wuxuu dooranayaa meeshii marka danaynayso waxaa soo baxaya baaqyo ka imaanaya dadka magaca ku leh waddanka Norway oo ay ku dalbanayaan in Soomaalida waqtigooda u horaan doorashada sanadkan dhacaysa maadaama ay muhiimad gaar ah leedahay deeqo Maxamed Maxamuud ayaa muujisay awoodda codka qofka uu ku lahaanayo doorashooyinka bismillaah maanta waxaan ka hadlaynaa doorashooyinka ka dhacaya waddanka Norway inkastoo doorashada ay tahay dan guud haddana annaga Soomaalida waxay noo tahay fursad gaar ah li'anna waa muhiim inaan ku helno shakhsiyaad na matala dawladda hoose qof kasta codkaaga dhiibo shakhsiga xisbigaad rabto taageer laakiin waa muhiim inaad codkaaga dhiibato li'anna hal cod ayaa wuxuu bedeli karaa wax weyn waa mahadsantii ugu dambeyntii gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Bergen Cabduqaadir Axmed Raage Waayeel ayaa fariin talo ah la wadaagay bulshada ku nool magaalada Bergen waxaan ku sabay lahaa in Soomaalida casharada ay ka qaateen 8 sano ugu dambeysay waxyaabihii ay ka barteen oo cadaadis kala kulmeen sogoloti ahaanka gaar ahaan sogolotinimada ayaa sare u qaaday in sanadkan doorashadooda si fiican uga qayb qaataan inay ogaadaan codkooda kaliya inay ku meel mari karaan meel cidla aysan joogi karin gambadkana ay ka baxaan oo xisbiyada si toos ugu codayaan iyo mid kale oo ah in la helay musharaxiin arrinkaasi u taagan oo fagaaraha soo istaago oo yiraahdo Soomaaliya ana matalaya annaka u hadlay marka labadaas ayaa maxay sare u qaaday labadaasana sare u qaadkooda oo ku aanay lahaa dadka hore codkooda u dhibtana waa bogaadinaya waxaan rajaynayaa dadka intooda dhiman inay codkooda dhiiba karaan maxaa yeelay waa ayahooda warbaahinta wacdaraha nolosha ayaa ku soo gudbin doonta natiijooyinka ka soo baxa doorashooyinka golaha deegaanka iyo kan gobolka oo sanadkan xiiso iyo xamaasad gaar ah xambaarsan Bile Maxamed Cabdi wacdaraha nolosha Bergen Norway